waxay kula taliyeen inay ka dheeraato wiilkan fasahaadsan ee xun ee dhaqanka xun. waxay u sheegeen inuu nolosheeda burburin doono. way ka diiday inay qaadato talooyinkoodii, waxayna u sheegtay inay weligeed la joogi doonto. waxay ku andacootay inuu yahay jacaylkii cumrigeeda ee dhabta ahaa, waxayna tiri weligay ka tegi mayo intaan noolahay. ma aysan ogeyn inuu geysiin doono heer uu gaarsiin doono inay ka shallaydo. waa maxay waxa foosha xun ee ku sameeyey ee ay ku ogaatay xaqiiqadiisa dhabta ah ee cabsida leh. laga soo bilaabo da'deedu markay maraysay 15 sannadood, Rayana waxay ahayd gabdhaha markaas soo qaangaaraya gabadha ugu caansan. iyadoo ay da'deedu tahay 17 sano oo kaliya ayaa waxa ay hantideedu gaartay $25 milyan. waqtigaas ayay waxay isbarteen heesaaga da'da yar ee la yiraahdo Chris Brown. dadkii waxay uga digeen inay ka agdhawaato wiilkaas dhalinyarada ah ee fudud ee dhaqankiisuna aadka u fiicnayn oo aadka u xun. waxay u sheegeen in aysan ka helin agtiisa waxaan xanuun iyo dhibaato iyo rafaad ahayn haddii ay xiriir la samayso. balse Rayana waa ay ka diiday, waxayna la yaabtay waxyaabaha ay u sheegayaan. waxa ayna dooratay inay isaga la joogto. xiriirkoodii waa uu sii weynaaday si degdeg ah, waxayna noqdeen laba qof oo aad isugu dhow. waxay filaysay Rayana inuu noqon doono jacaylkeedii koowaad ee dhabta ahaa, intay nooshahayna ay muddo badan isla noolaan doonaan. balse ma aysan ogeyn inuu wiilkani burburin doono qalbigeeda si adag oo aad u qaab daran ula dhaqmi doono. waan yaraa, waxaana u baahnaa in la ii ilaaliyo. waxa uuna ahaa qofka kaliya ee noloshayda ee aan sida dhabta ah u jeclahay, ayay tiri mar ay waraysi bixinaysay. waxa waqtigu socdaba sanado kadib waxay aragtay oo dareentay in habdhaqankii Chris si kadis ah isku bedelay. waxa uu noqday mid si qalafsan ula dhaqmaya, waxa uuna waqtiga intiisa badan ahaa mid xanaaqsan. fariimahaas Chris ka yimid waxay isku dayday inay iska indha tirto, waxayna nafteeda ku qancisay in habdhaqankiisu dib iska bedeli doono. balse nasiib xumo, marba marka ka sii dambaysa shakhsiyadda Chris waxay ahayd mid ay sii siyaadayso dabeecaddeeda xun iyo dhaqamada adag ay la soo baxday. iyada oo xaalku saa yahay ayaa maalin waxaa ku dhacay shoog iyo naxdin iyo qaadan waa markay ogaatay inuu naa kale xiriir la lahaa. Rayana waxay bilowday inay wajahdo arrinkii iyada oo la kulantay kadibna gaari dhexdiis kula murantay oo ku qaylisay waxa uu sameeyay darteed. isaguna qayladii murankii buu adkaysan waayay oo waxa uu bilaabayba inuu garaaco, isagoo islahaa way ku dulaysanaysaa ku ihaanaysanaysaa. marka si xun ayuu u garaacay. wajiga waxa ka soo gaaray nabaro iyo dhaawacyo aad u adag. Rayana waxay isku dayday inay ka cararto oo ay ka baxsato gacmihiisa xoog badan iyo garaacan, waxayna iska turtay gaarigii. markii ay cagta saartay wadadii oo ay ka carartay meeshii lagu garaacay, ayay waxay bilowday inay qayliso iyo dhahdo waa lay badbaadiyo, si degdeg ah lay badbaadiyo, ninkan inuu iga takhaluso doonaya. wuxuu dareemay Chris inuu sameeyay khalad aad u weyn iyo arrin fool xun markii uu garaacay kadib. maalintii xigtay waxa uu aaday ciidankii booliska, waxa uu u bandhigay naftiisii, waxa uu horgeeyay naftiisa cadaaladda. maxkamaddii waxay ku xukuntay Chris ganax lacageed oo fara badan iyo in la dabagalo muddo 5 sannadood oo lala socdo xaaladiisa caafimaad. dadku waxay filayeen inuu darsi iyo cashar ka baran doono maalintaas wixii dhacay, laakiin waxba iskama uusan bedelin. waa nasiib darro, waxa uu bilaabay inuu noloshiisii burburiyo, waxa uuna hal mar ka badan galay xabsi. waxaa sababayay inuu dumar badan garaaco oo dhib u geysto, muqaadaraad uu isticmaalayay iyo kaniiniyaal drugs ah. balse Rayana aan dhahe waxay go'aansatay in iyadu xiriirkaas sumaysan ay ka gudubto. waxayna muhiimadda saartay masiirkeeda fanaannimo, waxayna ka mid noqotay jiilkeedii fanaaniinta ugu sarreeyay, waxayna hantideedu kor u dhaaftay $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. xiriirkaas kadib waxay samaysay xiriiro kale oo dhowr ah. haddana waxay xiriir la leedahay ninka isna fanaanka ah ee la yiraahdo A$AP Rocky, waxayna u leedahay uur. wax walba ku sameeyay Chris waxa ay go'aansatay inay iska saamaxdo iyo afiso. waxay dhammaan dadka u sheegtay inay u naxdo oo ay u dareemayso dareen naxdin iyo naxariis ah, waayo waxay tiri waxa u baahan yahay caawimaad nafsiyadeed. waxay sheegtay inuu xanuuno nafsi ah ka qaaday hooyadiis ninka qabi jiray oo dhibaato u geysan jiray markuu yaraa. waxay ku waanisay Rayana inuu isku dayo inuu naftiisa cilaajiyo oo daweeyo si uu qof fiican u noqdo. waxay tiri wax walba aniga igu sameeyay waxaan u rajaynayaa nabadgelyo iyo naxariis iyo wanaag inuu ku noolaa. dadka qaarkiis waxay u maleeyaan in saamaxaadu ay tahay daciifnimo, laakiinse waxa uu wax badan ka xoog badan yahay argoosiga. halka aad igala socotid waa kanaalka aan ku leeyahay baraha bulshada ee Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif. saan muuqaalo badan oo noocan oo kale ah oo idinkugu soo diyaariyo, follow the like, share, subscribe inta waxay la dhaafin. aad baad mahadsantihiin.